الله أكبر الله أكبر الله أكبر. alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuun gaashaanle sare muuse cilmi faarax ayaa xabaalaha baqiic oo dhaca waqooyiga caasimadda hargeysa aas qaran loogu sameeyey marxuun gaashaanle sare muuse cilmi faarax oo ahaa taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada somalilan oo caasimadda hargeysa ku geeriyooday waxaana jinaasada marxuun gaashaanle sare muuse cilmi faarax ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi shirguddoonka golayaasha sharci dejinta ee jamhuuriyadda somalilan xubno ka mida golaha wasiirada madaxda asxaabta siyaasadda taliyaasha ciidamada qalabka sida aqoon-yahan siyaasiyiin iyo dadweyne tiro badan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa ka warramay taariikhda uu marxuumku ku lahaa sooyaalka somalilan isagoo madaxweynuhu shacabka somalilan ka tacsiideeyey geerida ku timi marxuum gaashaanle sare muuse cilmi faarax oo ahaa taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada somalilan oo hargeysa aas qaran loogu sameeyey. kullu nafs daa'iqatul mawt maanta waxaan joognaa aaskii gaashaanle sare allah u naxariistee muuse cilmi oo ahaa taliyihii ciidanka madaxtooyada saraakiishii hore ee ciidamada in badan soo shaqeeyay muddo dheer soo shaqeeyey ayuu ahaa halgankii ka soo qayb qaatay nin asluub badan afgaaban marka la yidhaha ereyga sarkaala u malayn maayo inay qof islaama malaha afkiisa iyo adinkiisu gef ku gaadhay aad u asluub badan buu ahaa dhowrsoon hawshiisana guta ilahay isaga ha u naxariisto qoyskiisii iyo ehelkii iyo qarankana alla samiriya iban ha ka siiyo qoyskiina ilaahay cawil khayr qaba ha u soo halkiisii ha keeno ilaahay waxaanu ka rajeynayna inuu jannatul firdaws ka waraabiyo innagana inooga daba naxariisto dhammaanteen iyo ummadda muslimkaaba. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan siciid mire faarax giire murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan maxamed kaahin axmed wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somalilan cabdirasaaq xuseen cali albani safiirkii hore ee somalilan u qaabilsanaa kenya ambasador baashe cawil cumar siyaasi maxamed nuur caraale duur iyo oday ibraahim maxamed cilmi ayaa ka warramay doorkii marxuum gaashaanle sare muuse cilmi faarax uu ku lahaa hayaanka horumarka somalilan iyagoo alle uga baryey in naxariistii janno firdowsa uu marxuumka ka waraabiyo. addoon aad u wanaagsan oo afkaaban buu ahaa cibaado badan ilaahay samiri baan haynaga siiya dhammaanteen qaranka iyo ciidamadii iyo qoyska iyo ubadkana dhammaanteen waan ka tacsiidinayaa ubadkana ilaahay cawilsan ha siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan tacsi qaran u dirayaa dhammaan shacbiga somalilan oo ka tacsiideynayo taliyihii ilaalada madaxtooyada gaashaanle sare muuse cilmi. waxaan ilaahay uga baryayaa in marxuumkaas ilaahay dembigiisa dhaafo jannatul firdowsana geeyo qoyskiisii iyo dhammaan qaranka somalilandna samir iyo iimaan baan leeyahay. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo korneyl muuse cilmi faarax ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo. muuse wuxuu ahaa nin runtii aad iyo aad u soo shaqeeyey ubadkiisiina waxaan leenahay samir iyo iimaan oo qaranka u soo shaqeeyey. ilaahay waxaynu ka baryaynaa dhammaanteen innagoo ergo u ah in ilaahay subxaanahu watacaala jannatul firdaws alaclaa ilaahay uu ilaahay geeyo dembigiisii iyo dembigii ummaddana ilaahay ku dhaafo camalkiisii saalix ahaana ilaahay uu ka abaalmariyo. waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii iyo shacabka reer somalilan samir yeman ka siiyo. waxaan uga tacsiyadeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka ciidanka qaranka taliyaha iyo ciidanka dhammaan si gaara ciidankii madaxtooyada ilaahayna waxaan uga baryaynaa marxuumka dhintay inuu naxariis janno ka waraabiyo. si gaara waxaynu halkan uga tacsiyadeynayaa muuse cilmi faarax taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada nin sarkaal ahaa saraakiisha farakutiriska ah ee aqoonta ciidan leh ciidanka qaranka ku jirtay ka mid ahaa qof ciidanimadiisa iyo dhaqankiisa iyo diineed labaduba wanaagsan yihiin ayuu ahaa. ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu guud ahaan
shacabka reer somalilan samiriya imaan ka siiyo nin ciidanka ahaa buu ahaa nin jecel buu ahaa nin ma garanaysa xitaa markii la kala daatay aan shaqooyin kale ku geyno meherda kuu furo aaminsanaa ciidanka u ahaa oo yidhi halkaasaan ku adkaysanayaa ciidankaa cirku ahaa iyadoo aan imika dee dawlad baynan waxba jirin buu iska fadhihi jiray meeshii ciidanka cirka ma garanaysaa ay deganaayeen buu iska fadhihi jiray wuu naga diiday inaanu dhoofino wuu naga diiday inaanu maxaanku dhahay shaqooyin kale ma garanaysaa u raadino wuu diiday inuu xitaa xaaskiisii oo maraykan jooga u tago nin ciidanka ku dhegan buu hayoo aaminsan